ururka al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. 15 bishii May ee aynu soo dhaafnay Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Balad Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu u tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoondhawe ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan dadka kale oo isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey gudoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Balad Xaawo aniga aan hadda buu yiri waxaan rabaa meesha degantaan oo waa inaad meesha degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki karo gurigeyga ay ag yaala sabtaasaan ku yiri markuu adig weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idin soo maro inoo soo maro raadinay markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas'uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeello gaarsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyay inuu doonayay inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa robotkaas qoray waa u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka inama dilin jaanis uu nagu dilay ma uusan heli karin anaka oo meel aan joogno ku imaade waa askarigaas uu naga dilay ma waxaad ku aaminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo hel ahaan maaragtay dhow maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga Harun shabaab walaal shabaab ehelad ma lahan dhawaanna laguma aamino anigu waxa aan ka aaminsanahay shabaab muddo dheer baan la dirirayay waana la diriri doonaa biidnillahi tacaala inta aan noolahay waxaan ogahay aniga qof kasta oo Soomaali ah oo mas'uul ah qofka loo soo dirahayo oo shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaalada Soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof reeb leeyahay inaan la xireyno inaan la taabanin inaan kan la yeelin laakiin aniga shakhsiyan qalbigayga arrintaas waa Ilaahay uu ka sifeeyay mana ii suurta gasho qof shabaab inaan ehelad ku soo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo ciidankana inuu suudo inay daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas'uuliyiintu inay gobolka Gada ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna 13 bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017 Isaaq Boorow Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa al-shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhaweyn u sameeyay una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen Isaaq Boorow Cali waxa kadibna loo dhaadhiciyay xarunta dhaqan celinta taasi oo ka qalin jabiyay sanadkan horaantiisii isagoo qaatay lacag dhan $1,500 oo la siiyo dadka ka qalin jabiya xarumahaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay Isaaq Boorow Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxaana uu dib ugu laabtay al-shabaab Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ay isku maalin soo goosteen Isaaq Boorow Cali isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhabo Isaaq Boorow Cali kolba gobolka Bay ma dhaafsano waxaan u maleynayaa adii meelahaas sheegay meelahan shabaabku joogan oo ka maamulo Idaaliya qaarkaas inuu joogan talaya hada laakiin inuu baxayna xaqiiq weeye warkaas waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyay markuu baxayay wuxuu sameeyay niman buu ka xiisay markuu meel dhac la marayo waxa ay sheegnin buu qori ka qaatay ninka markuu ka qori ka qaatay ka kalena banaan buu u yar baxay markuu banaanka u yar baxay kii agtiisa joogay waa ku dhuftay
kii adiga bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegay asiga badda markuu maqlay oo yuu meesha kasii kacay, markuu kasii kacayba wuu habadeeyey. saasuna ya maxaan ku rahday say hooshu dhacday. marka imise qori buu qaatay? 2 qori aa ka fadhiisabina. hal askarina wuu dilay? hal askarina wuu dilay. maxamed cali abshir waxa uu ii sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al-shabaab dib ugu laabto, waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta Baydhabo oo dib ugu laabtay al-shabaab, waxaana ka mid ahaa Ciise Lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid a ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed. 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay al-shabaab. dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna 2 ka mid a ragga ka soo qalin jabiyey xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliiska magaalada. raggaasi waxaa ka mid ahaa Kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi. bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha Ramadaan, rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madeer Madgaab Cali. 3daasi nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdulaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay. mas-uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray al-shabaab, xaruntaasina uu ka maqnaan jiray wakhtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaaro kala duwan. xasan Qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada 3 xarumood oo dhaqan celin ah, kuwaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo, waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka. waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2,000 oo dad ah oo ka soo goostay ururka al-shabaab, kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga. hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya al-shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka al-shabaab, marka ay hawshooda gutaanna ay dib ugu laabtaan. mid ka mid a saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 10% dadka soo goostaa ay dib u laabtaan. mid ka mid a saraakiisha ka soo goosatay al-shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin. Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab. dadka oo ka soo goosanaya al-shabaab dhammaantood ma aha daacad, waxay iskugu jiraan 2 kooxood, koox oo dhab ka tahay iyo koox hadaf leh. hadafkooda waxa u kala qaadaya inay tahay 2 ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan. mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiiliyaan xerooyinka ay ku helaan, ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadana calmaaliyad baa joogto, diintana laguma dhaqmo, dib usoo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan. iyo dad meesha ku hela ammaan, halkaas markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinka inay kala galaan, kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan, si ay markii loo soo qabto loo dhaho xerisrintii ku jira ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho, kabacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii watay ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto. marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xerisrindi waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kasta tegi karo, meel kasta mari karo, isagoo hawlihiina u fulinaya al-shabaab. sax, meel kasta inuu tegi karo, meel kastana uu mari karo, howlihiina shabaab u fulinayo, isla markaana dhibaateynayo dadka muslimiinta ahay, isla markaana dhibaateynayo qofkii si run ah isku soo dhiibo oo in markii la tashkiiliyey kabacdina madax adeegay, kaasna waa beegsanayaan. waxay beegsanayaan waa dawladda, waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegey, ee hadhowtii xerooyinkii iyo meelaha kasoo tegay dib inuu urufiyaan ay u diidayaan, usoo jaajoos u diidayaan, kuwaasna waa beegsanayaan. marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dawladda ah, ayagoo haysta waraaqada ay jidadka ay ku mari karaan iyo aqoonsi. hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa waa sii dayay raggii soo dhiibay, oo halkaasan uu ku hela ammaan buuxdo si oo wax howlihiisa u fusho ilaa uu ka fashilmo. guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo caddeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso, islamarkaana soo dhammaysta xukunnadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada 1 ee militariga Soomaaliya. usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan al-shabaab oo soo galay faldambiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay.
hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. qofka lagu soo eedeeyo al-shabaab balse caddaymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. waxaa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta al-shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay. tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista, taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul, ehel ama qof kale oo asxaab ah. hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan al-shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. go'aanka lagu hor joogsaday in al-shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23 bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayey xubnihii al-shabaab ee maxkamadaha soo maray. mid ka mid a dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey falo la xiriira al-shabaab, waxaana mar kale la hor keenay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute. imise qof oo xabsigooda dhammaystay oo shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayey kadib loo soo dacweeyey falo la xiriira shabaab? way badan yihiin dadka noocaas ah. tan xilligaasi markii oo waxaan lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geey jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofood oo laga qaaday. taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhamaystay qaybtii oo ku naqatay shabaabka ama qaybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyay. dad bil walbo ama 2 bil kasta dhowr qofood la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 kamid ah maxkamadooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay shabaab dib ula midoobeen. ayaga laftigoodana markaa weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobnay qaarkood. kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid ah labada haddaad soo qaado 7kan maxkamadooda socotay? kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid kamid ah 2016 dhamaadkeedii oo wuxuu dhamaystay xabsiga 5 sano xabsi ah u dhamaystay maxkamadda hore ugu heshay. markuu xabsigaas dhamaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay'adda dhaqan celinta Sarandi qaybtan Sarandi in ay qabato kamid ahaa. Sarandi heshiiskaas iyo xasan gaarnay dhaheen saasi ay ku suuragali weysay inay qabtaan. kadib saas oo banaanka uga baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda dambi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhamaystay. qaab kaloo loo hayay oo qaab maxkamadda iyo xabsiga weyna ugu sii jiri kara malaha. dambigu galay maxay ahayd markaas? shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd. haddana maxaa loo soo xiray? inuu argay shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan uu dib ugu laabtay. 30 bishii November 2014 Faisal Yusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhamaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militariga ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 64 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray al-shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen. Faisal Yusuf Aadan wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeelada dhaqan celinta ay marka hore dadkii ogoladu kamid yahay. wuxuu kamid ahaa dad la soo qabtay oo hay'adaha amaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo. wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay. baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanay shabaab kaliya in dambigaas ay ku heshay wayna ku heshay. kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay. xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014 taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 11aad. sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani dambigii intii la ekay garsoorkuna oo saaray waxaa loo baahday in Sarandi la geeyo. maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo. marka xilligaas 2014 maxkamaddu waxay geysay Faisal waxay geysay xerada dhaqan celinta Sarandi hadda xamar ku taalo. taasi muddo intisaas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016 iyadoo la dhahayo Faisal xerada Sarandi oo ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay. maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada Sarandi inay hayso lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu hubinayo afkaartiisii inay isbedeshay. hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka al-shabaab.
gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xidhiirinaya maxamed dulyadayn taliyihii al-shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda gaarisa 2 bishii abriil sannadkii 2015 bishii juun ee sannadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku ay dileen dulyadayn muddo yar kadibna waxaa la qabtay awliyo waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee al-shabaab balse mar kale Faysal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta bishii Janaayo 27keedii 2017 Faysal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah labadii baabuur ee isku qarxiyay saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyow oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya weerarkaasi al-shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayay maxamed dulyadayn wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay Britain waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay'adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo Adams Smith International waa xasuustaa dhowr mar oo dad laga daayo hal mar kaliya ma aha dhowr mar soddon la daayo waa xasuustaa mar yacni 40 xoogaa la daayo waa xasuustaa 64 waa dhici kartaa in mar la daayo weliba qoradan Adam Smith International projectiga implement gareynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas oo pressurekooda muxuu ahaa pressurekooda wax kale ma aha waxay isku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yani kostiga ay yareeyaan kostigana wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yar yihiin marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb kamida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhamaysta sababtoo dadkaasi suuqa laguma sii deyn karo iyaga dee mandate-kooda oo fundinka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas moogta yani boolasi ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd another funder ama another donor ama partner kaleeto oo fangareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo oo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo laakiin dee ma aysan jirin dee lamana raadinin markaas madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dambiilayaasha xukunka soo dhammaysta agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo kaliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira kulli anaga mashruucina wuxuu yahay soo dhiibay qof waxaana loo keenaa volunteer oo diyaar waa inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisa raalli ka umbaa naloo keenaa qofkii naloo keeno na dhahaya aniga barnaamijkan raalli ka mihi inaan dib uga laabto ma arkin marka inta badanna dee hooshaas annaga ka hore dhacdaa marka hay-adaha amniga meelaha lasoo dhiyaa markii uu qofka yidhaahdo waxaan rabaa inaan ka faaidaysto barnaamijka dhaqaacinta kaasaa naloo keenaa ciddii naloo keena anaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yidhaahdo diyaar mu tahay barnaamijka inaad ka faa'idaysatid markaas ka bacdi barnaamijka waxbarashadiisii sida uu shaqeyna waxaasa loo sharaxaa markuu aqbalo ka bacdi xeerada qayb ka noqdaa asagoo markaas waajibaadka iyo wixii la rabo fulinaayeen madaxda dowladda Soomaalidu waxay marar badan ku celceliyeen inay cafis u fidinayaan al-shabaab ayna ka doonayaan inay soo dhiibaan si wanaagsan loola macaamili doono hase yeeshee sida ka muuqata xarumaha ugu horeeya ee dadkani la keenayo ma haystaan manhaj hufan oo dhaqan celina sidoo kale nidaamka ay ilaa haatan adeegsadeen waxa uu ku guuldaraystay inay barnaamijkii al-shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay al-shabaab sidoo kale waxaa muuqata inay xarumahani muhiimadda koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalinjabinta samaynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka beddelidda dhallinyarada iyo qiimaynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi